rewajar South waxaan ku dhahayaa 60 sano yaad qabiil isu dooranaysan wax weyn oo hadda inkastoo la horumaray oo ummadii ay inta hore ka tira badan tahay oo iskooladii aan lahayn ay ka tira badan yihiin laakiin wali waxaan haysto dhibaatooyin haystay 63 dhibaatooyin haystay baa ilaa hadda haysto saboolnimada kamid ah baahida kamid ah daryeel la'aanta xoolaha kamid ah caafimaad xumada kamid ah iyo waxbarashadeennii iyo rugaheennii caafimaad oo ontayaysnayn 60 sano haddaad isku soo dooranayseen qabiil maalin walba ha ku celcelinina wax cusub raadiye sanadkan ha laga baxo qabiil in wax lagu doorto rag walaalaha oo sharaf leh baa sharaxan intaad qiimeysaan qofka aad isleedihiin ugu mudan yahay kursigaas idinkoonan qabiilkiisa eegin idinkoonan heybtiisa sheegin ilma adeerayaalow doorta xataa haddaan aniga ahayn kaa isaga doorta madaxda markaad wanaajisataan yaad horumar gaaraysaan adduunkaas kala hormaray ee qaarkiis adduunka koowaad lagu tilmaamo qaarkiisna adduunka saddexaad lagu tilmaamo iyo adduun soo korayay iyo adduun horumaraya madax baa halkaa kala geysay wadamo Kenya ay isla ahaayeen adduunka saddexaad 50 sano ka hor 60 sano ka hor yaa maanta ka tirsan adduunka koowaad horumaray madax baa halkaa geysay haddii idan madaxda wanaajisanin kana ila dhashay iyo kana ixiga wax ay ku tarin malaha lama sheegi karaya ma taqaanaa ee qof xildhibaana oo dan shakhsiyadeed ka shaqeeyo oo guulaysta danta guud baa ina wada anfacda marka isbitaaladiina la tayeeyo waxbarashada caruurtiina la tayeeyo marka wadooyin la idin sameeyo markaasaad kulligiin horumar gaari kartaan laakiin kana ixigee kana bari contract isiini kana ixigee kana bari caruurtayda bazariga u badini ma adeerayaalow wax ay idan dhaxal siinaysa adduunna ma jiro aakharana xaq dadeed baad qaadateen haddii aad beelbeel intaad isu urursataan aad idinka in aad dhiilkiina buuxsataan dhiilka ummadda kale ee deegaanka deganna aad ibrisaan xaq baa ilaahay xaggiisa idinka fuuli aakharana waa la idin weydiin maantay idinla gudboon tahay qabiilka wax lagu dooranayo xagga ha la iska dhigo bal hadda ha la sharrabo tayo yaa taya leh yaa ma codkiisa inoo horaya oo mataqaanaa aan baqaynin yaa loo filayaa in wixii loo dhiiba sideeda uu noogu keenaya ama mataqaanaa aan naga kala dhantaalaynin inahaas in aad maanta wixii go'aan ah aad gaaraysaan aad madax ku xulanaysaan ay noqoto waxaad ku xisaabtamaysaan oo ayna noqonin hebel baa ixiga iyo hebel baa mataqaanaa iidow iyo kana beel kan beeshiisa xaggaas ay iga jirtaa waxayna dhaxal siisay indhihiina waad aragtaan waxay il haysa ilaa la ka dhan